maanta dalkeenu xagu maraya gobolkan si xagu maraya horta dee idinkaa iga badiyo oo imika bahal social mediaha ayaa socda oo adduunka waxba uma ka qarsoona marka warka waa la wada haya laakiin waxaan lahayn warka waxa ka dambeeya iyo waxa soo socda ka horeeya marka waxa laga akhriyaa social media wixii dhacay maanta laakiin maxay soo martay sababta maxaa keenay inta badan lama oga waxa qura dadka researchka arrintaa si gaara u baara ee dhacdo kasta oo ku saabsan arrintaa ururiya ayaa haya waxay soo martay kaasaana ka saadaalin kara waxa soo socda ka iman kara Somaliland maanta waxay maraysaa waan isleeyahay 30 sano ay xorta ahayd dagaalamaysay waxay ka mid tahay maalmaha ay ugu fiicantay waayo mar kasta oo qaran iyo qof la socdo maalin walba waagi baryaaba waayihii salaam alayna marka ay soo baxdo hawl baa ku taal dad ciyaartoy tahay hawl baa ku sugaysa dad dhakhtar tahay dalkooda marka ay sana waa bulay maalmuhuna waa nolosha ka mid ilaahay baa saa ka dhigay maalin wanaagsan oo ku wanaagsan si aad doonaysaa maalin walba waa maalintii ilaahay waa sideedii laakiin markay adiga ka farxisa waxa doonaysaa adashana waa maalin farxad leh maalinta wax aad diidantood dacabta ay ku soo ay ka hortaadana waa maalin xubin xagga ka tag qof waliba uu soo maraataa dal waliba uu soo maraa adduunyada soo marta maanta dal aan dhibaato ku jirin waa yaray adduunyada waa la naga wada dhibaato baday dowladda Mareykan baa la yiraahdaa maanta waa quwadda kaliya ee adduunka meel walba gaari karta saacado gudahood ka adag ugu dhaqaale badan ugu ciidan badan haddana maanta waa dowladda ugu mashaakil badan mashaakilka ugu badan ma haysta galobka oo dhan meel aanay dagaal kaga jirin ama conflict ama arrin kaga jirin ma jirto ta kasta dowlad kasta oo weyn saasi dhawto qabato yaa haysta tayara in ku filan ba haysta inaga dhibaatooyin badan soo maray laakiin maanta waxaanu taaganahay waa markii ugu horeysay ee aynu hayno dowlad Afrika oo xoog leh oo ku dagaalamaysa oo cadeysanaysa annagu Soomaaliland waa ictiraafin waayahay in badan oo soo socotay arrintaa waxa qayb weyn ka qaatay dhalinyaro qurba jooga taa Itoobiya markii abaar wada hadlay waxay noqotay adduunyada nin waliba dantiisa mu raaca inaan sadaqa ma siiyo charity la siiyo dal waliba dantiisa eegay halka maxaan keenay tusaale waxaan soo qaadanayaa South Sudan oo aan u diyaar ahayn dowladnimo qabaar istilaya shidaalkii laga helay shiinu soo saaray ayay reer galbeedka wada caan la wareega dadka way kala gooyeen oo way ictiraafeen marka waa inaad awoodda aad leedahay wala iibisa awoodda aad leedahay haduu bablasha yahay haduu dhaqaale yahay haduu macdan yahay haduu strategic point yahay waxa laga rabaa inaad aad cid yeelato saadarteed waxay noo noqotay qolada dowladda in Ethiopia danta ay leedahay dantan la aanu midayno oo nu baargayn garayno adiga maxaa ku daran bad saadgaan ana maxay daran ictiraaf inaan UA aad igu horseedo oo labada maswaafajin karnaa ha tawaan maswaafajin waa ku dhigay dadna warkeeyo maxaa ka soo baxay hadda waxa soo baxay Soomaaliya oo qoladii talaar gumaysanaya iyo Soomaaliland oo qoladii Ingiriiska gumaysanaya oo laba dal isu tagay in qoladii Soomaaliya ay soo cadeysatay hadda inaanay ay u bareedeen tirada wax Soomaaliland ilaa ma jire waa gobol annaga ah oo waxna ma goosan karaan mana talin karaan cidna la hadli maayaan annaga jooga annagana Soomaaliya waa markii ugu horeysay ee uu soo baxo wajiga runta ah ee Soomaaliya soo raaci arrintaasi maanta waxaan leeyahay ilaa bishii January kowdeedii madaxweynaha Soomaaliya
xasan sheekh wuxuu hadlay in ka badan 11 jeer in ka badan buu hadlay maalin qura ma ledin wax wal oo gaf ah oo qarannimadeena ku ah oo sharafta Soomaaliland ku ah oo haddii Soomaaliba la yiraahdo magaca waa wadaagnaay oo dalal badan baan meelo badan kala deganahay aanay isu quurin ayuu maalin walba ku hadlaa ma oran karo dhammaan dadka Soomaaliya jooga arrintaa waa arrin laga soo heshiiyey oo loo soo dhiibay waa laga yaabaa in badan ay ku raacsan tahay laakiin qof caqligiisu taam yahay arrin uu ku kici kara maaha sababtoo ah anu maalintii heshiiskaa soo saxeexay Hargeysa imid airport marka ka hadlayay xasan waanu sheegay xasan waxa labadan cisho la qaylinaysaa waxa weeye anigu aan saxeexo taasi waxay ka dhigan tahay adiga oo la yiraahdo anigu gurigaaga aan ku maamulo hebelow gurigaaga ana ku maamulay adduunka wax dhacayna maaha Soomaalina waxa isku tiraahdo maaha wax la qaadan karana maaha sharciyada aanu arrintaa ku soo faragelinayna maalinta halkaas aan ka sheegay idina haddaad ka akhridaan Google iyo marba arkaysaa laba dawlad istaagay baynu ahay dawladdii riixaysa way duntay sodon sano kala maqanahay laba dawladood kala jaadaynu ahay waa maxay ana ku maamulay mahal karsidan hawada laga qaadanay qodobka labaad xasan waxaan leeyahay laba halba iska daa horta calaacalka badan iska daa qofka bini aadmiga calaacalka waa loogu badiyay inaad calaacasho laba naftiha fara noqon waxaanad yeeli karaynin mar walba ha sheegin waxaad leedahay Somaliland badeeda ana xukumo la soo maro haddaad xukunto ma timaadi xasan sheekh Hargeysa mar baad joogtay magan baad ku joogtay adoo qaxootiyaad joogtay markii uu ka socday dagaalkii ugu weynaa ugu adkaa Hargeysa halkeed joogtay sanado adiga reerkaaga carruurtaada secondary Hargeysa oo bixin carruurtaada maxaad markaa u leedahay ana ku xukuma maxaad markaa halkan ugu orowday markaa adduunka leedahay yaan la aniga hal soo maro haddii lagu soo maro xageed geeraysa waa xagee xukuntada geeraysa ma iska hubtaa banaadir inaad xukunto adigu odgeyn karto run baynu isu sheegaynaa haddaba qayladana ka weyn adduunka aad ku wareerinayso anaa xukumaha la ii dhiibay nafti ha farbaatay intii aad awooddeeda ku ekow go-aankan iyo MOU-gan waan fulinaya waan kugu celiyo fulaya qofku hadlaya hadduu laba qof yahay waa mushkil weyn marka aad leedahay Soomaali waan ilaalinayaa oo badda Soomaaliland baan ilaalinayaa oo waan u turayaa oo waa dadka ka naxaya waryaale xasan oo adiga kula midkii diyaaradii Hargeysa markay garaacaysay ee agoonta iyo islaanta waayeelka ah iyagoo dariiq marayo qaxay oo ka carray diyaaradda la daba joogay oo markaa miya ka naxaysan soo jeclayday Soomaaliland hal qof unba abaal loo haya oo arrintaa diiday oo maanta wuxuu yidhi maqlaya waa Dooliye Axmed ninkii diyaaradda ka baxay raggii kale ee arrintaa af ahaan wax ka yidhi waa dhinsanaa la xaristay waa la yaqaana Sheekh Abubakar Sulaymaan ka mid ahaa Hargeysa ku dhinto halkaa lagu aas rag badan baa ka mid ahaa ka hadlay arrintaa waa la hayaa taariikhda abaalkooda beriga xageed joogtay nin weyn baad ahay jaamacada wax ka dhiga maxaad ka tiri Soomaaliland maxaad u tiri qaxootaad ugu timid waa ku haynay waad ku dhaqantay hanti baad ku leedahay halka shirkada ku jirta kuwaad beriga halka asaastay wari shaqo laguma oran xasan madaxweyne waxaan ku leeyahay weliba waad dhaaftay hadalkii iyo dalkan ku hadlay maanta dilka xamarada ku dushay ninka reer Soomaaliland halkaas ku dushay godobtiisu aday ku fadhida uma qabno ila ilmo yaryar iyo qaar kale ka timid uma qabno inamada loo xiray ee weliba gardarrada waxa weeye anaa ku dilay anaa ku garqaadaya
أنا كوجو أمري واضبط أو واضج تسبب المهم بدش كوي استجا أسوق المدي إلا شقيري إلا هيبتها كوي نواد حدا واحد ليجا الدنبيلا حصلوا وتركوا قرار أضي كوتلا أضي قدبت أنا أضي دش على صارت حتى كوحرا تا هل كان صفر رافع وحن الدنيا ذا الشيء سوماليلاند حسن ضد وعالم كذا عسي ومرة كان هذا وحوي سوماليلاند هدي أي إثيوبيا اعترافان وح كروك عاية ودجال قاضي الشباب مدة الشباب كذا يلا مسك كونفروات شفت هذا الدجال بعد كل شفتي قرن مايو سببتها الشباب أي أكر ليسوا مركا السومال الاعترافش السومال المركا اعترافش حوج كوجر جارا ووحي أرجع حسال الضيالمة وأدون كنا بدك دوناوين وقرنسا هكو رجع سنين وحارد قوانين بنتي أدون كأشياء الشباب وان رمي وان كفر حشي خب الله يسيو هو كيلا قصي اسكي على الشباب أرادو سوماليلاند شباب ويلا دغالتها بحثوي وررتي هرقيسي وررتي لكن إلهي مهددت كذا أو نعب وحي أرقحساه سيد دستور كي كقرن ولي إلهي نوغمو فيين أو مر والبا وانو اسكا عابنا شركوه انت أبضنا حقاقو ما كتب هذا كونفورما نكتب هذا شباب قولب كانوا قد بيكا كلا وحويه حداد كدورس قبلك نبض حداد هاي وحنا دورنا إن قبلك ونبض نقول قبلك ونبض وحنا قرية مركو وحوضيشه دولوديس كاشدان ساحتين ما صلح قلان تربع 10 ورشة وراد إثيوبيا أروس أول استلج الرعادة هاي إثيوبيا تشارلقس هي جوهر دقال كذا بسوق قارين لما دقال بعضعي لا في الرحلة كيوها مدنات صديت وأتركي حسنوا ما يسوق على المدنة ورئيسك وحو كرعي ولما دقال بحوق جود كرعي سوماليلاند ما قالوا حد اللي بربريه هديتها عيدك عريض كيس هديتها قاوي عيسى هديتها قاعدين كي تذكر لها سوماليلاند ورن دقال كوجا لكن قالوا جوهري شرط شو بدنا مو قرين دقال dadka halkan jooga ku yiri kuwa dagaalkii 70 wada galay rag iyo dumar kumaan ka dumarka arkiisa iyo burcay iyo gabar jooga wajaanada oo burburiyay iyo boorama iyaga laga qaxayay waxay ahaayeen ciidamada kale 24 saacadood dhaawac iyo hawshiisa iyo cusbitaal aan lahayn oo kolka guriyo loo reeyeen dhaawac dadka ayaga gaadidka waaweyn dhan oo waqooyiga خاف يعيد الأورية هذه الأدوات قلي وحي أخاين سوماليلاند الدنيا مال أنا الاستوديو اللي بتشرته روش كي يتشرم الكاس كبدنا وحستنا أكولا له مريكا كأبوينا وقوي يكوف إنجليز كا يوكي إما كي ورث عطات في أيرلاند تدخل كورمانا حل باله هذا لو شيء مركا إثيوبيا حدي لرب معامره وبعمش اللي يسوي أرسله ولا روبه وأنت قبل كنا بدو كهرية تذكر حيران وعداوته بوحيي واشتري هرمر سوين مايا حتى دي ديجان يهدي أيه قبل بقى حسن وخرائق أضوضه يا قيرة كاي يريسه مدنا كاس عمس وحتكون بشارسته والفريق سبيس كان يعني إثيوبيا وحنا قبل ميسي هذا ودي عبد كرسلسة وحن كوجو درية تا عركنا أول سعنسة وأكتشف تنا ديارده ولي قالوا يقولون سوماليلاند كذا وحلا هاي ما أنت حصل وكذا حصلوا أما مصاروا يرو أما تركيا شيء سنقل كبش تسميركم جيرمس وحن فرينا وحفظتك كوريرين سوماليلاند وحلا حسن وعلى قريب أي وحبار يسلنا ذلك هرين ومرينا واشوفنا وانا وضنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.